السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داود يالكو سوداء بحرساف ميديا يولي برامج كله وآدو قروح بدن برامج كان وبرامج قارة وأنغوط تلقلنا إن أنكاقا هذا لنه بقرطوي دي سوماليا يولي بعلنكا سوماليا ورئيسيقان اياد كبغان دونتان وحياو بدن oo idinka dahson waraysigan waxa igala qayb qaadanaya aqoonyahan Soomaaliyeed Sufyaan Suriwo. waa mahadsantahay wariye Amal, thank you very much. أنا أقوم ارتقادي برنامج كان absolutely I'm very happy. marka Sufyaan anigii daawadayaashayda adigoo soo koobaya taariikhdaada halka aad ku dhalatay halka aad ku barbaartay waxbarashadaada waa mahadsantahay mar kale anigu waxaan ku dhashay magaalada Cadaado ee gobolka maamul goboleedka Galmudug waxaan ku soo waxbarashadeedii Soomaali waxay dugsiga hoose dhexe jilib dugsiga sare xalan ayaan ku qaatay dad badan aan aaminsan xalan dugsiga inuu jiri jiray dugsiga xalan ayaa jira oo dugsi sare waxa kadib waxaan u baxay qurbaha Canada ayaan high school markale ku dhameeyay Mareykanka nimid waxaan ku dhameeyay jaamacad la yiraahdo University of California San Diego waxaan waxbarasho scholarship u aaday Spain waxaan ku soo dhameeyay jaamacadda La Complutense xarunta Thomas Aquinas waxbarashadeedu waa taas waxbarashadaada iyo halkii aad ku dhalatay halkii aad ku barbaartay markaan ka nimaano waxaan rabaa in aan wax ka weydiiyo boqortooyooyinkii Soomaaliya ka jiray haddii aan ugu horeyno boqortooyada u juraan siday u dhaqmi jireen waxyaabihii ay qaban jireen aniga daawadayaasha bal noo sheeg mahadsantahay wariye Amal Soomaaliya waxay leedahay taariikh aad hodan u ah oo la inkira runtii oo aan jecelnahay maantay iyo maalin kastaba shacabka Soomaalida ah inay ku baraarugaan Soomaaliya taariikhdeedu kuma bilaaban 1960kii sida u qoran dadka Soomaalida Soomaaliya waxay leedahay taariikh aad u qiimo badan waxay ka soo bilaabatay inta hadda qoran qarnigii 7aad markii diinta Islaamku ay soo gashay wadankeena Soomaaliya waxaan xusi karnaa boqortooyadii ugu horeysay ee macnaha ay halkaas ka jirtay diinta Islaamku ay soo gaartay inay ahayd boqortooyada Ifaat iyo boqortooyada Cadaal waxay laba boqortooyo aad u waaweyn runtii oo isku bedelay qaybta Soomaaliya oo maantay ah sida dhulka Djibouti Eritrea meesha qaar kamid ah macna kilinka shanaad iyo afarta iyo oromada dhulka ay degaan iyo Haririinta dhulka ay degaan iyo waqooyiga Soomaaliya marka boqortooyada Ifaat ma waxay ku dhaqnaayeen Djibouti iyo Ethiopia mise Muqdisho way joogeen maya boqortooyada Ifaat ma aysan soo gaarsiin Muqdisho dhulka ay ka talinayeen ayadii Cadaalba haba kala yaraadeen waqtiyo kala duwan waayo dagaal baa socday waxay ahaayeen dhulka hadda loo yaqaan Djibouti Eritrea qaybta Ethiopia ee kilinka shanaad iyo agaarkiisa iyo Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya waxay leedahay boqortooyo runtii aad u xoog badan waxay dadkii helay ama boqortooyadaas ku guuleystay inay abuuraan waxa la dhihi jiray Walaashma family Walaashma family waxaan dad Soomaali iyo Arab mixed oo isku jiray ay ahaayeen waxa la xusuustaa ninka macnaha boqorkii ugu magac dheeraa wuxuu ahaa Sabruddin al-Thani ama Sabruddin the second oo asagoo ahaa ninkii founder gareeyay ama helay ama abuuray markii boqortooyadii Ifaat ay baabaaday boqortooyada Cadaal yiraahdo boqortooyada Ifaat waxay ahayd boqortooyada dhistay masjidka la yiraahdo Xarameyn ama Qiblatayn oo ku yaala maanta Zaylac oo leh laba qiblo waana masaajidka Afrika oo dhan ugu daada weyn masaajidka Afrika oo ugu daada weyn Zaylac ku yaala ilaa hadda maanta dalxiis loo teey karaa dadka Soomaalida ah ama dadka ajnabiga ah haday rabaan inay soo booqdaan waa soo booqan karaan ilaa iyo hadda masaajid baa mise waa meel dalxiis ilaa hadda macnaha markii ugu dambeysay ama buugaagta aan ka akhriyo ama sawirada aan ka arkay masaajidkii oo muuqda ayaa jira laakiin ma hadda lagu dukado oo masaajid jiro hadda lagu dukado ma laakiin waa goob macnaha dadku ay tagaan oo loo dalxiis tago oo historical place marka boqortooyadaas oo sidaas waxay gashay dagaalo ay la gashay dabcan Ethiopianka ama dadkii marka loo aqoon jiray Abyssinia guulo badan ay ka soo hooyeen labada Ifaat iyo Cadaalba waxa taariikhda Soomaaliya maanta wax yar laga xusaa Imam General Ahmed Ibrahim al-Ghazali oo Soomaalidu tiraahdo Ahmed Gurey oo ugu yeerto
oo ahaa macnaha qofkii ama shakhsigii markii ay ugu koreysay boqortooyada cadaal markay ugu awoodda badneed ninkii generaalkii oo imaam haddana ahaa oo xukumayay ciidamadii markaas hogaaminay ciidamadii markaas wuxuuna ku guuleystay oo taariikhda maanta ku taala inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee afrikaana ama generaalkii ugu horeeyay afrikaana afrika meeshay rabtaba ha noqoto marka xataa lagu daro carabta generaalkii ugu horeeyay afrikaana ee ciidamo European intay soo weerareen defeat gareeyay ee jabiyay ka guuleystay waxayna ahayd ciidamadii Portugiiska ma rabo inaan meesha ka saaro abaalkii Turkigu ama Ottoman Empire markaas jirta ay u galeen because waxay lahayn gacan saar fiican Axmed Gurey iyo labada boqortooyo Ifaad iyo Cadaal bala lahaayeen iyo boqortooyada Cuthmaaniyiintu waa kadib marka Cuthmaaniyiintu ay jirto markii Ifaad iyo Cadaal ay si macnaha baabaayeen Cuthmaaniyiintu weligood kama marnayn meesha si macnaha xataa dhinaca kale mar walba garab siiya dad walba marka Soomaalida garab siiya mar walba garab taagan ilaa iyo ayaga loogu guuleystay dagaalkii labada adduunka oo ay ku jabeen oo markaas ay dantu noqotay inay dib u durkaan oo wadankoodii ay safe gareystaan marka labadaas boqortooyo waxay laba boqortooyo oo runtii aad iyo aad u awood badan waxayna ahaayeen boqortooyooyinkii ugu horeeyay dhinacaas cadaal waqtiga ay jirtay dhinacyada kale waxaa ka jiray boqortooyin kaleeto sida boqortooyada Ujuraanka oo kaleeto jirtay dabcan marka labadaas boqortooyo Cadaal iyo Ifaad waxay labadii boqortooyo oo runtii dhinacaas waqooyiga marka la yiraahdo sabab u ahaa faafitaankii diinta Islaamka ganacsiga xadaarada aqoonta waxyaabo badan maanta waxaa jirta dadku aysan ogeyn hadii boqortooyooyinka faraha badan oo labadaas kala imaanay dhammaan boqortooyinka Soomaaliya aysan jiri lahayn dadka Soomaaliga ah maanta waxay ahaayeen dad gaala ah sida Afrikaanka kalaba ku dhacday waxa diiday inaan gaalowno ama gumeystayaalkii yimaadeen oo soo waran ay ku guuleystaan inay nagaaleeyaan waxa u diiday because xadaaradii iyo aqoontii ay Soomaalidu lahayd ayaa u diiday marka waxaad leedahay Soomaali ilaa intaasna way soo jirtay boqortooyada Ajuuraan hadii aan u nimaadno oo ka soo tagna boqortooyinka Ifaad iyo Cadaad boqortooyada Ajuuraan ilaa intee jirtay sidee u dhaqmi jireen iyagana boqortooyada Ajuuraan marka runtii boqortooyinka Soomaaliya ka jiro dhan la isku soo duuduubo boqortooyada ugu caansaneed uguna awood badneed militarily marka la yiraahdo ciidan ahaan marka la yiraahdo waxay boqortooyada Ajuuraan boqortooyada Ujuuraanku waxay lahayd nidaamkaasi wuxuu ahaa in la kala qaybsan yahay qabaa'ilka loo kala qaybsanaa waxay ku dhisneed qabiil ku dhisneed qabaa'ilka loo kala qaybsanaa ciidamada iyo engineerska iyo consultantiga waxa lahaa qabiilka la yiraahdo Hiraab ayaa iska lahaa runtiina wuxuu ahaa qabiilkii boqortooyadu ay ku taagneed asagay ku taagneed oo maadaama awoodii militariga macnaha taladii oo macnaha la tali ahaan engineers waxa la yiraahdo ama engineerski because waxay lahaayeen waxa la yiraahdo aqueducts waxay dad janaalo biyaha in la waraabiyo beeraha lagu waraabiyo technology-ga noocaas ay gaarsiinayaan markaas boqortooyada Ujuuraan boqortooyada Ujuuraan waxay talinaysaa almost 850 sano taqriiban waqtiyadii boqortooyada Ujuuraan ay jirtay Soomaaliya waxay ahayd dawlad caan ah ama wadan caan ah oo caalamka oo dhan laga yaqaan ganacsigoodu waxa uu gaaray ilaa iyo China inay la ganacsadaan Mongolia inay la ganacsadaan waxa uu gaaray in ay samaystaan lacagtii ugu horeysay ee dawlad Afrikaani ay mintigareysay macnaha samaysatay lacagtaas waa lacagta la yiraahdo Muqdisho waxa la jiray Muqdisho magaca Muqdisho ee aan maanta isticmaalno wuxuu ka yimid halkaas magaca Muqdisho wuxuu ka yimid boqortooyadaas iyagana markaa abuuray oo sameeyay lacagtaas oo ugu magac daray magaca Muqdisho absolutely magacaas Muqdisho wuxuu ahaa lacagtii waqtigaas ay sameeyeen ayuu ahaa alifaada marka ma waxa lahaa boqortooyada Ujuuraan oo kaliya mise boqortooyooyin kale iska kaashadeen may boqortooyada Ujuuraan kaliya boqortooyada Ujuuraan waxay leedahay boqortooyo iyadoo madax banaan oo awoodna leh very powerful macnaha ciidan ahaan marka la yiraahdo aad u xog badan waxa cadeynaya ciidan ahaan xog badanaayeen Portugiisku mar kale ayuu soo weeraray wuxuu soo weeraray boqortooyada Ujuuraanka waxa lagu jabiyay meesha la yiraahdo Baraawe waxa lagu jabiyay marka waxa lagu jabiyay Muqdisho waa fahmi kartaa marka dawlad European oo ka soo baxday Portugal oo maraakiibteedii iyo waxeedii wadata ayaa waxa timid Muqdisho waan lagu jabiyay sibaana lagu jabiyay macnaha taas ay leedahay fahmi kartaa awoodda militariga ee markaas lahaayeen iyo waliba isku xirnaantay markaa absolutely taas ka fahmi kartaa lacagtooday lahaayeen macnaha wadan currency ayagu ay leeyihiin markaas leh oo runtii lacag u samaysanto Afrikaani aan isticmaalin lacag kala telefoonada iyo lacag shisheeye ma dadku waqtigaas waxa la isticmaal jiray waxa la yiraahdo barter waxa la yiraahdaa in shay lagu bedelo
ama dahabka la isticmaalo lagu bedelo ayagu waxay leeyihiin lacag currency sida maanta midaan haysano kaleeto midaan haysano unfortunately anaga ma lihin magaceedana ma lihin shilin waa lacag gumaysta waaye magacana la siiyay magac shilinka anaga ma lihin Soomaali shilin wax jira ma Muqdisho waxay laakiin magac anagu aan leenahay oo anagu aan iska leenahay Soomaaliyan aan samaysanay marka boqortooyada Ujuuraan sidaas ay ahayd boqortooyada xoog badan bay ahayd waxa koosgareeyay ama keenay in boqortooyada Ujuuraan ay dhacdo macnaha boqortooyada saas u xoog badan inta aan u nimaanin in dhacitaanka boqortooyada Ujuuraan in boqortooyadaas ma waxay lahayd dhaqamo u gaar ah waxay lahayd dhaqamo u gaar ah dhaqamaduna runtii markii qaarkood ay soo banaan baxeen waxay noqotay waxyaabihii jabiyay oo koosgareeyay ama keenay in boqortooyada laga tiro meesha ay burburto maxay ahayd marka waxay ahayd in waxay markii hore waxa jiray waxay badiyeen canshuurtii macnaha markaan ku leeyahay canshuurtii badiyeen waa fahmi kartaa waqtiga isaga ah canshuura la qaadi jiray intii la qaadi jiray maahane in kale ku dareen canshuurtii badiyeen ayadoo canshuurtii xoogaa ay dhibaato ka jirto ay waxay ku soo dareen wax la yiraahdo first night ama premium noctus first night premium noctus macnaheedu waxa weeyaan gabadha marka la guursado in boqortooyadu hameenka ugu horeysa ay la soo jiifato oo gabadha ayagu ay bikri jabiyaan arintaas markay keeneen waa lagu gadooday sidii ayaa lagu burburiyay waxaana burburiyay maadaama Hiraab markaas uu haystay awoodii militariga ciidamada sidii ayaa looga wareegay boqortooyadiina waxay noqotay oo isla iyadoo systemkii iyo qaabka ay u socoto dhan u shaqeynaysa ay waxay noqotay boqortooyadii Hiraab ay la magac baxday markaas waxaa jirta qayb baar dheer iyo dhinacaas ahayd oo ka go'day oo la magac baxday ama ay ka abuurantay bashta waxa soo baxay boqortooyada Galadi oo ay u taliyeen family la yiraahdo Gobron boqortooyada Ujuuraan waa ka soo gudbay waxa u tali jiray family la yiraahdo Gran boqortooyada Hiraab ayadu way sii qaybsan marka boqortooyada Hiraab kala wareegtay Ujuuraan familkaas la yiraahdo Gran family iyaga ka soo baxay miyamse family oo ka yimid qabaa'ilka kale may waa family ka soo baxay Ujuuraanka qabiilka la yiraahdo ayuu ka soo baxay waxaana macnaha koosgareeyay ama keenay waqtiga isaga waxay lahaayeen dad waxay ahaayeen mutacallimiina dad aqoon badan leh dhaqanka premium noctus ama first night right waxay ka timid dhaqamo European waxay qaateen dhaqamada Europeanka ay qaateen saas ka timid laakiin Ujuuraan family la yiraahdo Gran wuxuu ahaa family Ujuuraan ayuu ahaa si fiican boqortooyada Hiraab sidoo kale nagoon ku dheeraanayeen waqtiga awgi iyagana ma dhaqankoodii oo hore ay u haysteen boqortooyada Ujuuraan bay la yimaadeen mise dhaqamo cusub iyo nolol kale bilaabeen boqortooyada Hiraab markii ay la wareegeen xilkii ay boqortooyo noqdeen sidii caadada ahaydba oo ay ka barteen macnaha waqtigii boqortooyada Ujuuraan ay jirtay way iskala qaybiyeen waxa la isku kala qaybiyay ciidamada iyo advisory wax la dhaho waxa loo xil saaray ama qaatay habargidir duduble iyo shiiqaal boqortooyadii ama waxay ugu yeeran jireen imamites ama imams waxay ugu yeeran jireen ilaa maanta jira waxa la siiyay mudulood maadaama mudulood uu ahaa curadkii sidaas ayay waxay ku xukumayeen wadanka 260 sano ugu dhawaan ayay ku xukumayeen waxa ayagu marka waxay noqdeen ma aysan cudur kaleeto ama dhibaato kaleeto oo ayagu gudahooda ah mid dumine 1920kii markii taqriiban meelahaas markii Talyaanigu soo galay dagaal baan ay Talyaaniga la galeen dagaalkii Talyaaniga ayaana ugu dambeysay boqortooyada sida boqortooyadii Majeerteenka oo kale sida tii Warsangeli oo kale sida tii Galadi oo kale boqortooyinka markaas ay baabeen marka boqortooyinka Galadi Majeerteen Darwiishti ma iska warqabeen oo ma ahayn dad kala warqaata mise boqortooyo walba si gaar ah u talinayso boqortooyada kale kuma dirsan jirin waxa jira wax la yiraahdo heshiisyo ka dhaxeeyay hase yeeshee dhulkooda boqortooyo walba waxay sovereign means ayada u madax banaaneed inay maamusho dhulkaas laguma haysan laba safar gali jirin laakiin waxay lahaayeen heshiisyo ka dhaxeeya maadaama luqadii ay ka dhaxayso maadaama dadkii uu islaamidii way fahamsan yihiin heshiisyada ka dhaxeeyay way jirtay dagaalo yar yar oo ka dhaxeeya iyaga dhexdooda laakiin muhiimku wuxuu ahaa inay xiriiradaas ama heshiisyadaas inay jireen marka isku astaan miyay ahaayeen ama isku calan boqortooyooyinka mase boqortooyo walba calankeeda u garaha waxay ku xirnan tahay taasi boqortooyada say u abuurtay boqortooyada Ifaat
iyo cadaal waxay isticmaalayeen calan maadaama silsilada ka dhaxaysa ama xiriirka ka dhaxaya uu yahay midaan saas u sii weyneyn oo cadaal iyo ifaad ay isku yihiin isku family wixii maamulaya ama dad iska agdhow calankii ifaad ay cadaalna sii wadatay sidoo kaleeto maadaama ujuuraan iyo hiraab aysan ahayn dad sidaa u kala fog family ahaan marka la yiraahdo dad isku sii dhex jira oo ay wada wadaagayeen magaca kore hawiye waxay calankii siday u sii wadeen oo boqortooyadii calankii ujuuraan ay lahayd ayaa hiraabna u sii waday daraawiishtu calan gooni lahayd oo cagaar iyo guduud ah warsangeli boqortooyadaas calan gooni lahayd majeerteenku boqortooyada majeerteen calan gooni lahayd galadi goobroona calan gooni lahayd واتهاي سفيان أدد ومحسن تهاي داوديال وانرجينيا إن أتكبرتين بقرطويين كي تاريخ ذو ذي يولبا على مدى إلهان جرين